heshiiska qaadka ee Kenya iyo heshiiskii Masar durba waxaa soo baxaya ifafaalo iyo ficilo adag oo ka bixinayaan shacabka Soomaaliyeed kadib markii madaxweynaha Soomaaliya cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiiska Kenya kula heshiiyey in qaadka Kenya la geeyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa tallaabadii ugu horreysay oo qaado waxay ahayd oo heshiisa inuu qaadka Kenya soo dhoofiyo asigoo u dhiibtay faamiligiisa. Waxaa la sheegayaa in ila ku dhow 68 diyaaradood oo ay leedahay dalka Kenya oo qaada loo qorsheeyay in maalin walba laga soo dejiyo dalka Kenya. Waa argagax iyo fadeexad dul hoganaysa madaxweynaha cusub asagoo mataqaanaa dalka Soomaaliya uu la daala dhacayo abaar iyo saboolnimo. Wasiirka beeraha Kenya Beto Munya ayaa sheegay in uu malaayiin doolar ka faa'iidayaan asbuucan qaadka loo dhoofiyo dalka Soomaaliyeed. ficilada guracan ee uu durba sameeyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid la saadaalinayay kadib markii uu doorashadiisii hore sameeyay ficilo waaweyn kuwaasoo qaranka jab iyo leel u soo jiiday. Wuxuu ka digay madaxweynuhu dalka Masar asagoo halkaa heshiis kula galay madaxweynaha dalkaasi Al-Sisi arrimo khuseeya biyaha webiga Niil taasoo aan Soomaaliya waxba ka khuseyn. Wadamada Itoobiya iyo Masar ayaa isku haya lahaanshaha webiga biyaha Niil iyadoo Itoobiya halkaasi biyo xireen ka samaysay ku buuxinayso, laakiin mowjad siyaasadeed ayuu dhex muquuranaya taasoo aan wax dani ugu jirin Soomaaliya. durba waxaa soo baxaya ifafaalo waaweyn iyo ficilo ay qaaday dowladda Itoobiya taasoo aad uga xumaatay ficilada uu sameeyey madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa markii labaad u dhoofayay magaalada Addis Ababa asagoo halkaa wadada hadal kula yeelanaya Abiy Ahmed si faragelin loogu sameeyo dalka Soomaaliya. Waxaa la wada ogsoon yahay in ciidamo fara badan oo Itoobiyaan ay joogaan dalka Soomaaliya taasoo Soomaaliya faragelinteedu markan iska fududahay. Dalka Itoobiya ayaa siyaasad ahaan iyo political ahaanba ka weyn kana adag Soomaalida marka la eego maamulada jilicsan ee dalka Soomaaliya ka jira iyo khilaafka mar walba soo wajaha dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada. Waxaa iska cad in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud durba uu dhex dabaalayo fadeexad iyo ficilo waaweyn iyo dhibaatooyin uu dalka Soomaaliya u soo jeeday boqolkii maalmood ee ugu horreeyay xukunkiisa. Dowladda Itoobiya oo aad uga carootay ficilada uu sameynayo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo heshiisyo hore ay gaareen dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dowladda Itoobiya oo ahaa in la isnabadgeliyo la isna ixtiraamo. Itoobiya ayaa haatan waxaa ku furan furimo waaweyn oo kaga imaanaya dowladaha Mareykanka iyo reer galbeedka taasoo la doonayo in lagu rido xukuumadda Abiy Ahmed. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tallaabadaasi qaaday.